for the National Weather Service forecast. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا ميل باجوكتين. جمعة مبارك، جمعة كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوا هذا خيارات شرفت له وواسك دقبله وها. سواح وناكسن جمعة كريم بيد الله هاي جمعة هذه وناكسنات تمول بجوكتين أفريقيا يوروب أمريكا anywhere الدنيا كجوكتين. ما تحالته أد وقصنت هاي ما شاء الله. لا ما سكان إله سمعنا هبت بعدي ميل بيجوجان عالم كان يكجوجان. soo dhawaada sii gudbiya sii sheergareeya amin hore aroor hore subax baa soo galay waa sii bilaabaya insha Allah inta ku jirto ku sii bilaabaya waqti badan ma hayo unadkii Soomaalida waa la laayay waa dhamaadeen waa baaba'een Ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun 300 qof oo Soomaali ya kurka laga gooyay gabdho Soomaaliyeed ya naasaha laga jaray gabdha iyo hooyooyin Soomaaliyeed ya gacmaha iyo lugta iyo naasaha laga jaray maanta deegaanka Soomaalida waxa lagu sameeyay qabri wadareed maalna qabriga intay cagafta qodo dadka aan macnaha gooni loo aasiyna maanta ka dhacday dadka meesha lagu aasiyo dhaw ummad Soomaaliyeed weeyaan Ilaahay ha u naxariisto gacan ka xaq daran baad dishay dadkii annaga aan soo dhaweysanay ee aan Soomaaliya gobol walba magaalo walba deganaa weeyaan waxa saa u laayay soo dhawaada fadlan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. may way tirada way kordhay tirada aad bay u kordhay hadda ilaa 300 bay maraysaa ilaa 300 qof bay hadda maraysaa Ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qof walbo Soomaali hooyooyinka iyo aabayaasha iyo dadka ganacsatada Soomaaliyeed barta lagu laay qof walbo Soomaali uu ka damqanaya uu ka naxaya qabiil gooniye male Somaliland gooni kama soo jeedaan deegaan kama soo jeedaan xamar kama soo jeedaan waxa loo laayay izir baa loo laayay waxa loo laayay inay yihiin Soomaali inay yihiin baa loo laayay looma laaynin qabiilka ay ka soo jeedaan looma laaynin inay yihiin reer hebel looma laaynin gobol ay ka soo jeedaan fadlan soo dhawaada sii sheer gareeya sii gudbiyada ku maasan jumca kariim baa idin leeyahay ma sha Allah waxa loo laayay ee dadkaasi maanta qabri wadareedka loogu qodayo cagafto ummadda Soomaaliyeed intay godka qodameedkooda loogu rudayo waxa weeyaan waa izir naceeb weeyaan ma aha qabiil reer hebel bay ka soo jeedaan ma aha qabiil hebel bay u dhasheen ma aha xaafid hebel bay ka soo jeedaan ma aha waxa loo laayay loo dhameeyay ee loo dilay waxa weeyaan Soomaali ahaan weeyaan marka qof walba Soomaali waa inuu ka naxaa waa inuu ka damqadaa waa inuu ka dhiidhiyaa waa inuu xataa haddii uusan gacanta waxba ugu tari karin waa inuu muujiyaa Soomaalinimada inuu muujiyo calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ku salaam iyo soo dhawaada sii sheer gareeya sii gudbiya maanta ma rabina soo galo riisoka hadda saacad subaxnimadan aroorta u soo galo waxa weeyaan Soomaalinimada aad ugu weyn anigu resistaan waxaan ahay Soomaalinimada aad ugu weyn tahay أنا جعلان إنه أركم مواطن سوماليات أما قف سوماليات أو دبات الجارسية إلى بعد كل درشة قبر سوماليات أو جناح ستة أو سوماليا جيس كي ماتي أو ربتي عروتة بيلي اللين يبسنس حرنيش أو ناسها اللي جوي ناسها إنا لله سواح وناكس سود وهذا قلنا جحيس وبسلام يا قبر سوماليات أو هويو سوماليات حتى هدي إن الدلائيان الربان إن الدلان حبض من ولفتان هدي الربان حتى إني كدلان كبابيان وحدانتو إني حبض كولفتان نفتك عاتبتو
waxana lagu sameeyay Soomaali hadaana waxana lagu sameeyay ee sida isirnaceebka sida Barmo kala noqonay Barma wadanka Barma la yiraahdo rahinga dadka islaamka ee halka joogo genocide-ka lagu sameeyo kala taan noqonay soo dhawaada subax wanaagsan waa duqbilow kablo faarax waqti khaldan ma soo galay aruure si gudbiya si share garay idinku maasan sidii rohinga dadka muslimiinta ee Barma jooga sida genocide-ka loogu sameeyo annagana lagu sameeyo sababta wallahi billah sawirada macnaha maanta marka aragtid oo damiir Soomaaliyeed aan leedahay qoladaasi oromada kililka degan qabka ay Soomaalida maanta u laayeen wargabdho yar yar oo 18 jir macnaha 38 jir oo da'da gabar Soomaaliyeed ee business iyo maskax ku raasatay tahay oo naaska saddex qaybood loo jarayo maarta naaskeeday saddex qaybood u jarayaan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun والنعيب وين أننا ودك النجا السؤالية good morning قدر وابو سلام يا سود وهذا خيرك شرفت له ما أنتوا وان إلمانيا ما أنتوا وان أوينيا ما أنت هاد بروح أنا قصناي ما أنت ديجي تدخي جي ولا الله ينيا سحن الله ينيا أنا الصوماليا وجيس كافك إلهي الصومالي يقدر ومقرر ساي سود وهذا خيرك شرفت له السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سود وهذا قبلها نجوا الناس كلها قوينية قبلها نجوا الناس كلها قوينية صدق قيود بلو قوينية قفل بود ضمير له والصوماليات وكان حياة رنتا ما وكان لي ما أنت والله يبي جمع كريم وكان لي سو إحنا ما هو شغلة كاموس ماي وقت أهل ماي هدوبي لكن ما أنت سؤال ده سود وهذا خيارت شرفتنا ودخلوا ويان جمعة كريم بين الله ما يلقى جوتين سود وهذا سواح ونكسن ودقلو كبلو فارح ولا الكيس معه كثيرة سود وهذا ميل بنتين ما أنت قبلها النجي الصوماليات الناس على قدرية قبلها النجي الصوماليات يغروح بدنا ندري عندلني مقرر شيء هو يمكنها يا ما أنت أورمو ناس كجريسا ويبهدليسا الديودو وهرك اللي بدي يسجل أنا وصومالي مركان هاي أورومو وين يسود ويني أورومو قوميات اللي يرادو صوماليا وكسود ويني قولوا البيت جوجان مقالوا البيت كدقيين عرضوا كوكر سودان كبروكيين كشقيستان قبله هذا اللي بدلوا قبله هذا حولوا قوم السمايو صوماليا ويسكجنوا لي إنك استوي حالته هادو قرارت هاي معناها وكان بين هذا فضلا ودقبلو كبلو فارح ولا عكريم بدر الله سي شير قريه شي قد بيدكم ماش وما كان بين قرينا ما انت ان قبر اورمه الناس كلغا غويو او لدلو او سوماليا كسغن وما كان بين قرينا اذا ديه مايو لكن الصوماليه انت انغو اسكو مشغول سرين ورهبل يا رهبل يا حالده ونوعان يا ورهبل يا ورهبل arrintu ay socotay waxay maraysaa maanta in ummadii Soomaaliyeed genocide lagu sameeyo waxay maraysaa maanta ummadii Soomaaliyeed iyo gabdhahoodii in maanta naasaha laga gogooyo waxay maraysaa maanta ummad Soomaaliyeed in qabri wadareed loo sameeyo oo cagaf qabri intay u qodo laga gaari waayo in ma garanaysaa si wanaagsan oo sharaf loo aaso waxa soo dhan keenayna waxa weeyaan Soomaalida oo dadka kale iska xigsato laakiin ogsoonada Soomaaliyeed meel badan ba wax idinka tusiyaan annagu markaa Soomaali markaa nahay wallahi oo billahi oo tallahi ama Ethiopia joog ama Djibouti joog ama Somaliland joog ama Xamar joog ama Nairobi joog waxa lagu yaqaano waryaa garaysa waryaaba lagu yaqaana wallahi been ma deeron qabiilkaaga ma yaqaanaan reerkaaga ma yaqaanaan deegaankaaga ma yaqaanaan
waxa ay ku garanayaan waxa weeyaan waryaa soo dhawaada fadlan sii gudbiya sii shirka waryaa ayay ku yaqaanaan maanta waxaan baraha bulshada ku arkay rag Soomaaliya gabdho Soomaaliya oo taageeraya genocide-kaas Soomaalida lagu hayo gabdhaha Soomaaliyeed ee qurquruxda badan ee maasha Allah ganacsiga u tagay barta ee ka soo jeedo Soomaaliya iyo Soomaalida Itoobiya daga ka soo jeedeen naasaha laga gooynayo ee la bahdilayay nala tusaya anaga damiirkanaga la tusayo waxa weey rag waxaan arkay ku faraxsan oo ku dhahayo waan oromada taageersanay waana ku faraxsanay in dadka la laay naceebka ka buuxo naceebka aad kaaga buuxo gumba tahay Soomaali ma tihid jareertii Soomaaliya nabadeynaysa qofka nooca u hadlo dhan waa soo galeeta dhiigiisa saafi ma qolooyinkan cadaanka ee wadamadan aan joogno ee resistiga dagaalamo ee kalarka ku dagaalamo waxay ku doodaan oo dhahan anagu saafi baan nahay bay ku leeyihiin anagu saafi ayaan nahay saafi macnaheedu waxa weeyaan anagu cidna dhax gashay cid macnaha anagu kalar DNA-ga naga dhax gali karto oo bedeli karto ma jirto anagu marka Soomaali baan nahay internet resistiga ee aaminsan Soomaalinimada ee aaminsan inaan Soomaaliya waxba laga qaadi karay gabadha Soomaaliyeed aan waxba laga qaadi karin aaminsan waxaan aaminsanahay dhiiganaga inuu Soomaali yahay qabiilku dooraha ahaada inuu Soomaali yahay oo dhiiganaga uu saafi yahay oo anagu cidna inagu dhax jir hadaad aragtaan qof Soomaalinimada ka cararaya oo ajnabi ka raadsanaya hadaad aragtid dhiigiisu saafi ma aha ama hooyadii baa Soomaali ama aabihii baa Soomaali daamarka waxa weeyaan waa qolada cadaanka iyo anagu waxba isma dhaana moogtaa resistiyaal banay oo Soomaalinimadu ay ku weyn tahay ma garanaysaa qadiyada iyo kalarka iyo dhiiga iyo ma garanaysaa qoomiyad ahaantaana waliganaga wala la ciribtiri waay gaal Talyaani baa isku dayay inuu ciribtiro Ingiriis baa isku dayay inuu ciribtiro Faransiis baa isku dayay inuu ciribtiro waan ciribtirmi weynay in la dhax galo oo dhiiganaga la dhax geliyo dhiig kale oo Soomaalida lagu khaldo waynu diidnay waynu ka hor imaanay qabiil walba ugaaskiisa iyo suldaankiisa iyo malaaqiisa ayaa protect garay that's why we still skinny Somali and unnahay hadaad aragtid naag Soomaali ama wiil Soomaali ama nin Soomaali oo qof Soomaali dib loo geystay ku faraxsan oo ma garanaysaa soo dhaweenayo ku dhaaya macnaha Soomaaliga gaalka ka jecel daartid dhiigiisu saafi ma ah wallahi been ma qabiilku sheeganaya been way Soomaalidu sheeganaya been way waa half Somali oo markaasi waxa weeyaan ay ku diyaar tahay dareenka iyo qadiyada iyo jareeracada kugu kacayso qofka Soomaaliga fiiri tusaaleer badi fadla soo dhawaada si sheer gareeya maanta waxa weeyaan tacsi ayaa noo taalo dood inoo ma taalo isku dhagdhag inoo ma taalo soo dhawaada si gudbiya si sheer gareeya idinko maasan meel walba joogteen waa waaska duqbulowha jimca kariim baad leeyahay waa aamin aroor hora soo galay wax sababta u soo galayna waxa weeyaan waxa ka aaminsu waay gabdhaha naga Soomaaliyeed naaska laga gogoonayo ee ma garanaysaa business kalka u tagay inta badan dadka ay dileen dad ganacsato aha dad ma garanaysaa ka ganacsanayo baalka loo yaqaan jaadka loo yaqaan ka ganacsanayo ayay ahayd anigu jaadka ma cuno laakiin irsaaqada Soomaalida barta ka gasho laakiin xaq uma laha inay dilaan oo naaska ka gooyaan oo ma garanaysaa gabar Soomaaliyeed ay bahdilaan iyo wiilal Soomaaliyeed iyo rag Soomaaliyeed la baabi'iyo xaq uma laha wallahi wabillahi tallahi inaysan xaq u lahayn qof walbo Soomaali waxa laga rabaa inuu ka dhiidhiyo qof walbo Soomaali waxa laga rabaa inuu ka dhiidhiyo loo baahan yahay sababtoo ah war waxa maanta walaalka ku dhaco berritana adiga kugu dhacaysa maanta hadaa tiraado waxaan duqbulowbay ku dhaw waxaan arkay qolooyin iyo ma garanaysaa qolooyin arrintii siyaasiyadeeyay oo Oromadii u dhawaanayo oo Oromadii ma garanaysaa waji iyo taageero kaga raadinay war maanta gabar Soomaaliyeed oo naaska laga gooyay iyo aabba Soomaaliyeed oo la gubay oo nolosha lagu gubay oo loo dilayo isirnaceeb maanta loo dilayo loo gubayo wallahi bileynaysan siyaasad noqonin hagaartay Soomaali Maxamed way aarsanaysaa waligeedna way aarsan jirtay wallahi been ma Soomaali Maxamed ma aha ogaadeen iyo Oromo ma aha Soomaali iyo Oromo weeyaan sababtoo ah ay Soomaali u tahay dadka ay laayeen 80% waa reer Hargeysa reer Somaliland weeyaan anigu qabiil ku sheegma laakiin hadaa adigu baashaad leedahay ogaadeen iyo Oromo weeyaan ogaadeen iyo Oromo ma aha ana ku sheegay sufiic u dhigay soo dhawaada fadlan
sii sheegay waxa ay dilay waxa weeyaan waa Soomaalida ganacsatada ahayd Hargeysa inuu jaadka laga joojiyo jaad uusan imaanin ma la socotaa idaacadaha ka daawanaysa aad iyo aad ma la socota in jaadki loo bedelay wallahi Soomaalidu waa dad xadaarad waa soo dhaweynaya waa taag meeruga Soomaalidu ma disho mana gubto gabdhahana naaska kama goosin ka dalbada jaadka waa soo dhaweynaya arrinta noocaas laakiin oromada nagu dhaxnool ee Soomaaliya gobol walba ku nool ee magaalo walba Soomaaliyeed degan ee la soo dhaweeyo ee guryaha xaaqo ee magaranaysa maqaaxiyaha ka shaqeeyo ee babysirka ee la soo dhaweeyo ee la yiraahdo waa islaam waa muslim macnaha annagu waxba kuma sameeyno Soomaalina waxba kuma sameeyno Soomaalina waxba kuma aysan sameeynin sababta keeni karta cawaantan oromada inay gabdhaha nagu naasaha ka gooyaan war haday dilayaan xabad ku dhufanayaan inay xabad ku dhuftaan baa wanaagsan war haday rabaan inay dilaan oo ma garanaysaa nafsada dhaafiyaan noocay noqoto ama siyaasad ha noqoto ama arrin kale ha noqoto inay xabad ku dhuftaan baa ma ahayn inay gabdhaha Soomaaliyeed ay naasaha ka jaraan ma aysan ahayn wallahi oo billaah tallahi waxa meesha daasan war caruurta yar yarka ah 7 jirka 8 jirka ee Soomaaliga ay dhagaha ka gooniyaan waa cawaan weeyaan oromada meesha aragtaan hala dagaalamo wallahi been ma wax siyaasado inaga dhaxeen karto iyo wax heshiiso inaga dhaxeen karo iyo isu soo dhawaasho inaga dhaxeen karto wallahi inaysan jir because of waxa isirnaceebka ay inoo qabaan annagu ma qabdo Soomaaliyeedana isirnaceebka ay inoo qabaan iyo naceebka xumaatada ay noo qabaan annagu uma qabno annagu waa soo dhaweynay annagu guryaha naga degayn xaafadaha naga ka shaqeystaan magaalooyinka naga joogan carruurtooda iskuulada geynaa carruurtooda baalaslayaasha xaafadaha ka shaqeystay magaalooyinka weyn ee Soomaaliya cid wax tiraahday iyo cid macnaa cusuriyeysay ma jirto maanta ayaga maati oo meel walba daadsan maanta ayaga oromo maati oo magaalo walba oo Soomaaliyeed daadsan maanta ayaga ayaa baabaasan oo ku dul jiiftaa oo ma garanaysaa Itoobiya meel walba ku bahdilan ayaga weeyaan Soomaali ma bahdili karaan wallahi oo billaah tallahi inay Soomaali bahdil kar aniga maamulada Puntland iyo maamulada Jubaland arrinta idii soo jeedinaya dhageysto shacabka la baabi'inaya isirnaceebka lagu wado ee la rafaadiyay waxa weeyaan waa ummadii qoomiyadii Soomaaliyeed weeyaan oromada Puntland joogto iyo oromada Somaliland joogto waliba reer Somaliland dhageysto Itoobiya maanta oromo way ku kacsantaa oromo Ethiopian ma aha oromo maanta Itoobiya mucaarad bay ku tahay Itoobiya hadaad u mareynaysaan oromo hadii maanta sharci lagu soo rogo inay Itoobiya maanta macnaha arrin kale oo siyaasadeed iyo guri ay ku weynaysaan ma talada wiilka la taliyaha dhageysto dadka oromada ee Somaliland joogo oo dhan waa in sharci loo sameeyaa aniga maanta rutidii sheegay waligiin bina sharci sameeysan oo ay dhiikar sameeysan suma jeclaan ha soo dhawaada fadlan si gudbiyo waa in dadka oromada ee Somaliland ee Hargeysa iyo Berbere iyo Burco joogo waa in ay dhiikar loo sameeyaa waa in ma garanaysaa ay dhiikar loo sameeyaa waa in naagta uurka oromada loo diraa markay 6 bilood tahay ee xaamilo 6 bilood waa in gobolkeeda loo diraa ha u ogolaanina inay ku dhasho Somaliland sababtoo hadii ay gabadha 6 bilood oromada ay ku dhasho Hargeysa iyo Berbere iyo Burco ilma ay ku dhasho ilmaha Hargeysa wuxuu kalam gareenayaa Burco kalam gareenayaa anigu talada shifco dhageysto ha ku noolaadaan waxban yaa lagu sameeynin yaa gabdhahooda la dilin yaa wiilashooda la dilin laakiin sharci ID ha loo sameeyo taxina ha laga qaado taxi ka badan ka muwaadinka reer Somaliland laga qaadayo laba jibaarkiisa ha laga qaado aniga dhageyst laba fadlan soo dhawaada si share gareeyo si gudbiyo odaga duqbilowa maanta 300 oo gabar iyo wiil Soomaali yaa naasaha iyo xubnaha taranka laga wada gooyay oo la bahdilay maanta xabaal wadareed loo sameeyo siyaasadda maaha qoomiyad ahaanba maanta nolol dhameynaya dhageyst reer Somaliland reer Somaliland iyo reer Puntland waa idin soo reer Somaliland waxaad u baahan tihiin gabadha oromada markay 6 bilood tahay uurka 6 bilood markay tahay waa ina baabuur la saaraa waa inay gobolkeeda aadaa dhageyst waa inay gobolkeeda aadaa statekeedii iyo magaaladeedii aadaa ilmaha barta ay ku soo dhashaa haday soo noqonayso ee shaqadeeda iyo waxeeda u soo noqonayso gooni weeyaan kuwa joogo hadda joogana waa ina sharci loo sameeyaa ID card waa in loo sameeyaa
ID kaarkaasi oo taxi beer ay ku noqonayaan dhageysta ID kaarkaasi adduunyada way ka jirtaa marka isir naceeb ay jirto isir safays ay jirto la rabo in la macnaha lagu dhalar rogo ee gobolkaaga iyo gobol wadankaaga laga qaato waa ina sharciyo u soo rogtaa weeyaan oromo wayna gashay ayadoo uu dul qaadanayno buuqeedii qeelideedii u jiray maanta gabdhaha nagi naasaha ka guurisa war gabar Soomaaliyeed oo business u tagtay gobolka u tagtay oo magaranaysa leen jaad iyo wax soo xiranayso Hargeysa ka timid iyo intay qabteen bay naaska ka gooniyaan ragina taranka ka gooniyaan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun soo dhawaada fadlan sii share gareey sii gudbiya maanta waxa weeyaan tacsi ayaa inoo taalo Soomaali Maxamed kuwa marka soo Puntland aan u soo noqonayo reer Puntland oo idinkuna waxa la rabaa sidaas la mid ah ila dawladda federaalkana u geysaan proposalkaas قوميده أورمده سومالي حق ماله ملك كدكتنا ماله شعب كناجنا ويدا ماشي دولة السوالين وانا لك عشان رب اللاني قروي بوساس أورمده كشق يسترى وإن أي دي كارلوس سمية the same thing ناقت أورمده مركي اللح بلود تاي عاملتها وور تاي اللح بلود وإلا درا هر يا قبله ده الله درا شيء صورنش marka uu kadib waa inay soo noqotaa warka kadib waa inay shaqadeeda u soo noqotaa laakiin inta ka horeyso yaa lagu ogolaanin ilmo dambe Oromo inuu san dhulkana ku dhal kuwa siyaasadda Oromada maanta dadkii intay laayeen dadkii Soomaali intay laayeen maanta Oromada la safan ee Oromada ma garanaysaa dhinaceeda jiro aad baan u cambaareynaya kuwa kale Soomaaliyeed ee maanta walaalahooda inta 3-4 boqol oo Soomaalida maanta la laayay taageerayay ku faraxsanay baraha bulshada soo dhigay weydii cadeynaya duqbalow dhageyst wallahi la soo gala saacada ma rabin ina hadlana ma rabin laakiin waan hadlaya maanta si fiican baan u hadlaya dhageyso Soomaaliga saxda waa duqbalow iyo inta la midka ee ka dhidhiso in qof Soomaali qabiilku doona ha ahaado ee la dila ka dhidhiso weeyo qofka Soomaaliga aniga inta la midka waxaan nahay cadaanka white supremacistiga aad aragtay anagana East African Somali supremacisti bana sababtoo dhiig naga saafi weeyaan sanka naga fiiri indhaha naga fiiri timaha naga fiiri aqliga naga fiiri intelligence naga fiiri waxay ku cadeynaysaa inuu dhiig naga uu saafi yahay bay ku cadeynaysaa qabiilka doonaha aan ahaado qabiilka doontina aad ahaantid laakiin qofka Soomaaliga kale to ilaahu mu qabiilku doona idoor mu hada hawiye mu hada daarood mu hada way iska wada naxayaan because of they have a same skin oo jarraca ay ku kacaysa jirto oo dareemayaan walaalkiis in dib loo geysto hadda anigu halka joogo hadii mid soo reer Soomaaliland ama mid reer koonfur ama hawiye ama abgaal ama bargidire halka anoo qolo kaleeto ajnabi igu feeraysa ama igu dilayso doorka dhiiga dhaqaaqaya uu soo dhaqaaqaya dagaalku dhinac ka galiya that means waa Soomaali pure waa Soomaali saafi ee weeyaan kuwa maanta Oromada Soomaalida layse ku faraxsan ana runtii sheegay ajaanib fara badan ba Soomaaliya ina soo gashay أجانب فربضن أيها سوماليا سوقشي خلوين أنا جميسي أها يكوا بيس كيبينو ماذا أدونه صنك أنت الليج يا جريرة قبلها أنك ويل كدلان تمجل عسام بسكية لنا وحاول سوماليا سكية كان لكني بلاك ويلجي ما يلني مركا أديكو مركا تكفر حسنت قفك الصومالي إلى الدلية ولا الكائن نبلوك استكفر حسنت أكسونو دقبلو بكو عدني you plan it was not the DNA كوجرو is not a سافي معه DNA أديك كوجرو سافي معه هو هذا عم أباها معناها ملك الكيمد و DNA جيس عن صومالي صحيح نجيسو هدي لغو براي قبيلك أفكار لغو وشب أكسونو هدا قف صومالي كن حواية أداركتين وما قرنا الساية كفرحو وما قرنا الساية أن كدم قنواية أركتين أسوار قال أما أبيه ملك الأردنتي أما هويدي ملك الأردنتي أما أووغي ملك اللغسو قلاه DNA كجرو بقولكي وبقول صومالي ما لكن مرة دارتي قبر صومالي وأويني سمويل صومالي وكان حيكدم قني ده مينس قبيلكو دورها كدشو وبيور صومالي ديكي سنة وسافية هاوية وسواح ورا سوقلي كمان التلجر لكن ما توكلنا حي ورمضة قولنا الصومالي جوكتو يلا دلين يعني دبلوك يسن لكن الشرعي ونأكسن وعن كل حسابتنا وإلا صو سارا
بيننا ما رئيسو مالي لانو قبلهن الناس هاللقا قوي قبلهن والا لايي رجينا قناع ستدا هاي هالدوركا والا بابي وحادو باهنتين هذا قومية دا أورمضة ماشا يكوب بدنتهاي وقبل كوقويق الصوماليا أما السومالي لان وانا شرعي كسو سارتان وانا قولدا شقعان بركو قبطان ريبود لان سيدو كاليتو ريد ديان كديدي سايا كل كسوالي دا إتوبيانا أيونا مانتا وكوا قبرقا آسي كل قوان سحي كسو ساري دوران شعب كالي الصوماليات أكسون هذا كوا تاغيرو أورمضة تاغيرو صوماليا نادا لينيس دي قاقا دقبلو مانتا سحي دي قاقا is not a pure Somali saxe ma dhiigaaga waxba ku jira you need to ina aabaha iyo hooyada u tagtid afkooda inaad geed afka ka gilisid ba u baahan tahay si secret ah ana ku sheegay sababtoo dareenka Soomaaliga ayaa kugu yar waa ina ogaataa dareenkaaga sababtu u yar yahay waa ina u ogaataa waa ina hooyada u dhuumataa ama cunto weela ku cunta aqaadaa oo dhiireeda afka u gilisaa waa $20 weer raqiisto waa $40 weeyaan waa $40 $50 weeyaan dhagiso aabahana u tag because shaki baan ku gelinayaa sababta shaki ku gelinaya waxa weeyaan your own dad and your own mother hadii ay tahay pure Somali hadii yihiin iska dhal aad tahay oo isku sax aad tahay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida kula dhiigo ka naxaysa cadaanka iyo Afghanistan iyo Iraq kama naxaysid iyo Syria waxa ka naxaysid waa ummadaada weeyaan ummadaada ina ka naxda loo baahan the secret kana ku siinay waligiiba wiilkan wala taliye weeyaan aabaha u tag ama bakeeri wax ku cunay suuf yar qaad candhuufta saa u mari hooyadana u tag ka qaad adigana iska qaad dirsadiyeenada soo ogow hooyada iyo aabaha midka saxda ah ogow DNA-da saxda ah waxaad ogaanaysaa markaa iyada waxa uu dareenka Soomaalinimada kugu yaryaa waarida salaamiya jimca kariim baydalay meel walba joogtiin waa aroora soo galay assalaamu calaykum si sheer gareey si gudbiya calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh